bismillaah awlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran channel youtube-ka aqoon kororso official insha allah waxaan qaadanaynaa jabtarka 8aad ee maadada xisaabta ah jabtarkaas oo lagu magacaabo aragtida Pythagoras casharada lagu qaadan doono cutubkaana waxaa ka mid ah aragtida Pythagoras fogaanta u dhaxaysa laba barood qaybinta xariijin casharada waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Ustaad Cabdiwahaab Cabdi Maxamed channelka casharada kala socotaan waa channel youtube-ka aqoon kororso official cutubka 8aad ee maadada xisaabta ah fasalka 8aad oo ah cutubka ugu dambeeyo waxa uu ku yaalaa page-ka 144aad waxaan u gudbayaa page-ka 145aad oo uu ka bilaabanayo cashirka koowaad cashirka koowaadna waxaa loo yaqaanaa aragtida Pythagoras waa maxay xiriir ka dhaxeeya dhinacyada saddex xagal quman Pythagoras waa xisaab yaqaan u dhashay Greega kaas oo daaha ka qaaday mid ka mid ah aragtiyooyinka ugu caansan xisaabta qaacidada uu daaha ka qaaday ayaa waxaa loo yaqaanaa aragtida Pythagoras ama Pythagoras theorem aragtida Pythagoras waxay ka hadlaysaa xiriir ka dhaxeeya dhinacyada saddex xagal quman haddii aan gudaha u sii galno cashirka page-ka 146aad ayaan u gudbaynaa oo waxaan ka hadlaynaa aragtida Pythagoras waa maxay aragtida Pythagoras waxay ka hadashaa waxay tahay dhinacyada saddex xagalkan ayay noo sheegaysaa laba jibaarka shakaalka saddex xagal quman waxa uu la egyahay wadarta laba jibaarada dhinacyada kale qaybtan shakaalka ah oo loo qaatay c waxay la eg tahay c laba jibaaran equal waxay la eg tahay a laba jibaaran oo dhinacan ah oo lagu daray b laba jibaaran oo ayadan dhinacan ah marka waa a b iyo c marka qaybtan c-da waxaa loo yaqaanaa shakaal waa dhinaca ugu dheer ayaa loo yaqaanaa shakaal haddii c-dan lagu diro ama c-dan la raadinayo waxaa lagu helaa si hadda usoo sheeg meesha ku qoran tahay waa c square ama a square ama a laba jibaaran waxaa lagu helaa a laba jibaaran oo lagu daray ba laba jibaaran waxaa loola jeedaa tirada meeshaan oo a tirada haystid oo laba jibaar saaran oo lagu daray tiradan hoose laba jibaar saaran waxa li weydiyo iga maqan waa tiradaas kore waxaan u gudbayaa page-ka 147 147 waxaa ku xusan tusaalaha koowaad raadi dhinaca quman adigoo adeegsanaya aragtida Pythagoras waxaa la siiyay b waxaa la siiyay ba iyo ta iyo ja qaybta ba waxaan haystaa booskan a oo aan haysta 12 booska b na waxaan haystaa 5 qaybta c way iga maqan tahay si aan lii weydiin marka inaan soo saaro oo ah qaybta shakaalka shakaalka waxaa lagu helaa c laba jibaaran waxaa lagu helaa a laba jibaaran oo lagu daray ba laba jibaaran a laba jibaaran waxaan haystaa 12 waxaa leedahay 12 laba jibaaran oo lagu daray 5 laba jibaaran 12 laba jibaarkeeda waxaa kasoo baxaya 144 oo lagu daray 5 laba jibaarkeedana waxaa kasoo baxaya 25 labadan tiro isku dar waxay noqonaysaa labadan tiro isku daro 169 sidaa markay tahay waxaan gelinayaa dhammaantood xeed laba jibaaran baada xeed laba jibaaran soo gelay 169 xeed laba jibaaran soo gelay xididka iyo labadan way isla baabeen inta waxa ka soo haray waa ba oo kaliya 169 hadii xididka laga saarno waxa soo haray 13 sidaa darteed marka halkan waxaan ka ogaan karnaa in dhinaciga maqnaa oo bartan c ay tahay leeg tahay 13 cm waxaan gudbayaa qaybtan kale qaybta b qaybta b waxa la weydiiyay h ama ha laba jibaaran waxaan haystaa a iyo waxaan kaloo haystaa p qaybta ugu dheeran raadin raba oo shakaalka ah shakaalkana waxaa lagu helaa saan usoo sheegay h laba jibaaran waxaa lagu helaa a laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran sidaa darteed booska a waxaan haystaa 6 soo qaado laba jibaaran booska b na waxaan haystaa 8 laba jibaaran soo qaado 6 laba jibaaran waa 36 sidoo kale 8 laba jibaaran waa 64 labaan tiro isku dar waxaa kasoo baxaya 100 halkan square root geli sidoo kale inta la square root geli waxaad la bixi doona square-ka iyo waxaad la bixi doona labada inta waxa ku soo harayo waa h ama ha kaligeed 100 xeed ka saar waxa soo haray 10 sidaa darteed marka qaybta iga maqan oo h-ka ah waxay la eg tahay 10 cm ay la eg tahay 10 cm hadda waxaan raadinayaa qaybtan kale u dambayso ah qaybta c qaybta c waxaa lii weydiiyay mise iga maqan booskan iga maqan oo a marka a maadaama iga maqan tahay a waxaa lagu helaa a laba jibaaran waxaa lagu helaa waa c laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran waa c laba jibaaran oo laga jaray b laba jibaaran marka qaacidadaasaan qaadan doona insha allah
waxay noqonaysaa a laba jibaaran waxaa lagu helaa c laba jibaaran oo laga jaray b laba jibaaran. booska c waxaan haystaa 10 centimeter soo qaado 10 centimeter laba jibaaran laga jaray. booska b na waxaan haystaa 8 centimeter laba jibaaran. labadan 10 haddii laba jibaaro waxaa kasoo baxaya 100. 100 haddii laga jaro 8 laba jibaaran waa 64. 100 haddii laga jaro 64 waxaa soo baxaya 36. kadib waxaa leedahay a laba jibaaran waxay leegtahay 36. 36dan a laba jibaarankan square root soo geli ama xeed laba jibaar soo geli. 36 sidoo kalena waxaa soo gelinaysaa xeed laba jibaar. xeedadkii labadan la baabaayo inta waxaa kasoo baxaya waa 2. 36 xeed ka saarna waxaa soo baxay 6 centimeter. saa darteed qaybta iga maqan oo a waxay leegtahay 6 centimeter waa jawaabteeda qaybta saxda ah. waxaan gudbayaa beejka xiga oo ah 148 oo ku xusan cashirka labaad. cashirkan wuxuu ka hadlayaa fogaanta u dhaxaysa laba barood. waxaan qaadanaynaa fogaanta u dhaxaysa laba barood anigoo ka faa'iideysanayna aragtida Pythagoras. waxaa lagu helaa fogaanta u dhaxaysa laba barood sida tan. fogaanta waxaa lagu helaa x2 oo laga jaray x1 oo laba jibaaran oo lagu daray y2 oo laga jaray y1 oo laba jibaaran. marka tusaale koowaad ayaan hadda qaadanaynaa. tusaalaha koowaadna waxay tahay raadi fogaanta u dhaxaysa laba barood. waxaa lagu siiyey laga jaray 1,4 laga jaray 1,6. saa darteed anagoo marka u qaadan doono qaacidada ama qaanuunka meesha noo saaran. waxaan rabnaa inaan soo saarno x2 laga jaray x1. saa darteed tirada hadda meesha ku qoran sideen u dareemi karaa ama sideen ku ogaan karaa kii x2 ah iyo kii x1 ah. tirada koowaad waxaan u qaadanaya inuu yahay x1. kan waxaan u qaadanaya inuu yahay y1. sidoo kale minus 1 kan u qaado x2. 6 kan u qaado y2. 6 maxaan u qaadanaya y2. saa darteed marka tartiib ku bedelo. booska x2 hadda meeqan haystaa x2 waa kan waxaan haystaa laga jaray 1 soo qaado laga jaray 1 calaamada sharciga soo qaado minus leh. x1 na meeqan haystaa laga jaray 1 sidoo kale soo qaado laga jaray 1 oo dhammaan laba jibaaran lagu daray. waxaa meesha ku xusan y2 meeqan haystaa 6 waaye soo qaado 6 laga jaray. y1 waxaan haystaa 4 laba jibaaran. saa darteed inta waxaan haystaa minus intana waa minus. haddii isku dhacaan waxaa kasoo baxaya plus. balaaskii ayaa waxaa ku dhacaya minuskan. minus 1 waa plus 1 iyo minus 1 waxaa kasoo baxaya 0. waxay noqonaya 0 laba jibaaran lamaantir way kala jarmeen. qaybtaana waa 6 laga jaray 4 waxaa soo baxaya laba jibaaran. saa darteed soo qaad tiradan 0 laba jibaaran waxaa soo baxaya 0 oo kaliya plus laba jibaaran waxaa kasoo baxaya 4. 0 lagu daray 4 waxaa soo baxaya 4 oo kaliya. 4 xeed ka saar jawaab soo baxday waa 2. marka fogaanta u dhaxaysa laba barood ayaa lii weydiiyey. labadan barood fogaanta u dhaxaysa waxay noqonaysaa waa 2. hadda fiiri si way ka sameyn yihiin. inta waa -1 intana waa -1. halkan waa 4 intana waa 6. marka 4 6 maxay isdheer yihiin waxay isdheer yihiin 2. halkaas ku saarnay halbeega ama qaybta u dhaxaysa labada barood inay tahay 2 ama 2. waxaan gudbiyaa page-ka 152. tusaale labaad ku xusan raadi fogaanta u dhaxaysa laba barood. labadaas barood oo kala ah 5,3 iyo 1 minus 2. furfuris u qaado xeerkii ama qaanuunkii aan hore usoo aragnay. sidoo kale qaybta koowaad waxaa u qaadanaysaa x1 inuu yahay. qaybtan labaad 3 u qaado y1. 1 kan u qaado x2. sidoo kale 2 kan u qaado y2. nidaamkaas ayaan ku qaadan doonaa insha Allah. qaybta koowaad marka 5ka meeshan waxaa ku xusan x2 waxaan haystaa 1 soo qaado 1 laga jaray. x1 waxaan haystaa 5 soo qaado 5 oo laba jibaaran oo lagu daray. y2 waxaan haystaa laga jaray 2 soo qaado laga jaray. y1 waxaan haystaa 3 oo laba jibaaran. labaan tiri kala jar waa 4 minus 4 laba jibaaran oo lagu daray. labadan tiri isku dar. kan waa minus kan waa minus waxaa kasoo baxaya plus. waa in isku dara calaamadoodana soo qaado. waxay leegtahay marka 3 lagu daray 2 waa 5 laba jibaaran. 4 laba jibaaran waxaa kasoo baxaya 16 oo lagu daray. 5 laba jibaaran qiimaheedu waa 25. saa darteed labadan tiri isku dar. marka xeed ka saar waxaa soo baxay 6.40 oo halbeeg ah ama fogaanta u dhaxaysa labadan barood ayaa waxay leegtahay ama qiimaheedu ay noqonaysaa 6.40. 6.40. waxaa ku xusan waxqabad inaad ka shaqayn kartaan isku day waxqabadkaas.
waxaan gudbayaa cashirka ugu dambeeya oo ah pageka 153 cashirka saddexaad oo ah qaybinta xariijin. sidee ayaan ku heli karnaa barbartameedka xariijin? barbartameedka macnaheedu waa maxay? xariijinta dheer kala barkeeda. waa maxay barbartameed? barbartameedka waa bar dhacda bartanka xariijinta una qaybisa laba fogaan oo isku mid ah, waxaana markaa lagu asteeyaa sumadda ama calaamadda ma. hadda fiir, halkan waa barta a, intana waa barta ba. xariijintan dheer maxaa kala baro? waxa kala baro waa qaybtan dhexe oo boontigaas mise dhibicdaas kala barto, waxaan loo qaatay xarafka ma. waxaa lagu helaa barbartameedka xariijin ay labadeeda bardhamaad ay yihiin qaybta a haddii lagu siiyo x1 iyo 1 ama x1 x1 y1, barta b lagu siiyo x2 y2. waxaan u isticmaali doonaa qaanuunkan hoose. qaanuunka hoose waxa uu sheegayaa inta inay tahay qaybtii barta ah. marka barta ama barbartameedka waxaa lagu helaa x1 plus x2 oo loo qaybiyay 2 iyo y1 plus y2 oo loo qaybiyay 2. haddii aan u gudubno pageka 156 tusaalaha koowaad. tusaale kooda waxaana la weydiiyey waxa aad raadisaa barbartameedka xariijin ay labadeeda barbardhamaad ay yihiin laga jaray 1 laga jaray 2 laga jaray 4. furfuris u qaada qaanuunkan ama xeerkaan ku dabaqi doonaa. sidaan hore usoo aragnay qaybtan koowaad waxaan u qaadanayaa x1, qaybtan labaadna waxaan u qaadanayaa y1, kan u qaado x2, 3 waxaan u qaadanayaa x2, 4 kan u qaado y2. ku bedel tartiib. marka x1 waxaan haystaa laga jaray 1 soo qaada laga jaray 1, x2 waxaan haystaa 3 soo qaada 3 waa -1 lagu daray 3 oo loo qaybiyay 2. sidoo kale y1 waxaan haystaa laga jaray 2 oo lagu daray y2 waxaan haystaa laga jaray 4 plus laga jaray 4 oo loo qaybiyay 2. sidaa darteed labadan tiro kala jar waxaa kasoo baxaya 2 oo loo qaybiyay 2. inta waxaan haystaa -2, intana waa -4. marka minuskan iyo minuska haddii isku dhacaan labadan tiro, minus iyo plus isku dhacaan waxaa kasoo baxaya minuskan wuxuu ku dhaca minuskan waxay noqotay 6, marka waxay noqonaya -6 oo loo qaybiyay 2. 2 u qaybi waxaa inta kasoo haray 1. intana haddii 6 loo qaybiyay 2 waxaa soo baxa laga jaray 3. sidaa darteed barbartameedka labadan barood waxay noqonaysaa 1, -3. waxaan gudbayaa qaybtan waxaa ku xusan waxqabad inaad raadisid barbartameedka u dhexeeya barahan soo socda ama xariijimahan. waa 3 qayb inaad keeni kartana isku day ama kasoo shaqayn karto, kuna soo reeb qaybta commentiga insha Allah. waxaan gudbayaa pageka 157 tusaalaha labaad. haddii barta ma ay tahay 3 laga jaray 2, hadda waxaa lii siiyey barbartameedka waa lii siiyey. sidoo kale ay tahay barbartameedka xariijinta ab. xariijintan dheer oo lagu magacaabay ab, a iyo b lagu magacaabay xariijintan. barbartameedkeedana waa halkaasna waa ma'na qiimaha lii siiyey waxay la eg tahay waa 3 laga jaray 2. bilowga xariijintana ay tahay, bilowga xariijinta waa aadanna waxaa lii siiyey tirada meesha ku qoran oo ah 1,5. waa 1,5 lii siiyey qaybtaas oo barbilowga ah. sidaa darteed haddaba raadi bardhamaadka ab. waxaa lii weydiiyey bardhamaadka ab. su-aashaan iga maqan oo b ah, qaabkee lagu heli karaa b? marka u isticmaal xeerkii ama qaanuunkii hore aan usoo qaadanay oo x1 iyo x2 ahaa. sidaa darteed marka hadda meeshaan koowaad waxaan u qaadanayaa inuu yahay aadaas u qaado. waxaan rabaa u qaadaa xarafkan koowaad x1, sidoo kale u qaado shantaasna y1. maxaa iga maqan? waxaa iga maqan waxay tahay x2 iyo waxaa iga maqan y2. marka labadaas qaybood waxaan u kala qaadan doonaa x iyo y oo keliya, maadaama iga maqan yihiin caad u soo qaado. marka meeshaan booskan ma waxaan ku badalinayaa qiimahan haysto barbartameedka waa 3, laga jaray 2. waxay la eg tahay x1 waxaan haystaa 1 oo lagu daray qiimaha x2 ma haysto soo qaada x oo loo qaybiyay 2, y1 waxaan haystaa waa kan y1 waxaan haystaa 5 soo qaado plus y2 ma haysto y soo qaado loo qaybiyay 2. marka sidaa markay tahay waxaan samayn doonaa inaan 2 u kala qaybiyo saan u fududeeyo. qaybtaana mar aan xaliyo
anoo coefficient mas horgal ugu dhigi doono -2 ayaan horgal ugu dhigi doonaa. qaybtan inaan mar xaliyo anoo ku dhufan doono mas horgal ugu dhigi doono qaybtan hoose ama qaybta koowaad oo lagu magacaabo 3. marka qaybtan kood ku bilaabo hadda waxaa sameynaysaa 3 soo qaado waxay la eg tahay 1 plus x oo loo qaybi 2. sidaa markay tahay dhinac kasta ku dhufo 2 leenkan 2 ku dhufo intan 2 ku dhufo 2 lagu dhuftay 3 waxay la eg tahay 1 lagu daray x oo loo qaybo 2 oo lagu dhuftay 2. marka haddii aan fuudeeyo qaybtan kalena waxay noqonaysaa 2dan tiro isku dhufo waxa ka soo baxayo 6 tiradan kor soo qaado waxay noqonaysaa 1 lagu daray 6 oo loo qaybi 2. marka qaybtan hoose 2dan iyo 2dan isla baabi'i inta waxa ku saaro oo kaliya 1 waa 6 waxay la eg tahay 1 lagu daray x. saan u helo marka qiimahan x saan u helo waxaan sameynayaa in dhinac kasta aan ka jiro 1 intan waxaan ka jarayaa 1 intan waxaan ka jarayaa 1. marka waxaa sameynaysaa 6 laga jaray 1 waxay la eg tahay 1 lagu daray x oo laga jaray 1. labadan kala jar waxa ka soo baxay 5. halkan balaas soo wataa kana minus soo wataa marka maadaama minus iyo balaas ay kala tahay in baabiina raba halkan meesha ku yaalo waxaan sameynayaa in labadan tir isla baabi'i kana waa balaas kana waa minus halkan isla baxeen inta waxa ku soo haray x oo kaliya. marka qiimaha koowaad waxaan soo helay x barta koowaad waxaan soo helay waxaan rabaa 5 qaybta koowaad oo x ah waxaan soo helay 5. waxaan aadinayaa qaybta kale qaybtan kala soo qaado coefficientka koowaad oo ah -2 waxay la eg tahay 5 plus meeshan xaada ah waa ya meesha xaada ah ya ku bedelo oo loo qaybi 2. marka dhinac kasta ku dhufo laga jaray 2 dhinac kasta waxaan ku dhufanaan rabaa 2 dhinacaan ku dhufo 2 qaybtan 2 ku dhufo intan 2 ku dhufo intan 2 ku dhufo 2 lagu dhuftay laga jaray 2 waxay la eg tahay 5 lagu daray x oo loo qaybi meeshan x kana ya ka dhiga marka 5 lagu daray ya oo loo qaybi 2 oo lagu dhuftay 2. sidaan hore u soo barnay labadan tiro isku dhufo waxay la eg tahay -4 waxay la eg tahay inta marka meeshan 15 kama jiro waa 5 kaligeed waa 5 lagu daray ya tuugan isla baabi'i. marka saan u helo qiimaha ya intay la eg tahay waxaan sameyn doonaa inaan dhinac kasta aan ka jaro 5 laga jaray inta waxaa leedahay -4 laga jaray 5 waxay la eg tahay 5 lagu daray x oo laga jaray 5. labadan tiro isku dar maadaama ay yihiin minus ay yihiin waa plus waxa ka soo baxay 9. 5tan waxay wadataa waxa u qarsan plus 5tan waxay wadataa minus haddii isku dhacaan waxaan ka soo baxay 0 way kala sameyn intan waxay noqotay qiimaha x in la eg tahay 9. marka qaybta b waxay la eg tahay 5,9 waa bartiga maqan oo c bartiga maqan oo c oo bartiga maqan oo p waxaan soo helay qiimaheeda 5,9 marka su-aasha lii weydiiyo ahayd soo raadi bardhamaadka a b oo qaybtan ah qiimaheeda wuxuu noqday 5,9 ama 5,9 saa u taqaaniidba. halkaasna waxaa ku eg cutubkii 8aad ee maadada xisaabta ah fasalka 8aad. insha allah waxaan samayn doonaa in cutubyada kale oo channel ku jira inuu qaybaha ka dhiman dhamaystirno. hadafkeena waxay tahay inaan dhamaystirno buugan xisaabta fasalka 8aad oo dhammaystiran inaan soo gelino channelka insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.